كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow koorskeeni PHP for beginners. casharkeenan shanaad waxaan ku dhigan doonaa in this lesson casharkan we will learn waxaan ku baran doonaa how to write hello world in PHP, sida PHP hello world loogu qoro. Hello world waxa weeyaan sentence-ka ugu horeeya ee luqad kastaba lagu bilaabo. luqad kastaba syntax-keeda hello world ayaa lagu bartaa. marka hello world waxa weeyaan koodka koobaad ee lagu bilaabo barashada luqad kasta. marka luqadeena PHP teeda cashar qodobka labaad aan ku baran doonaa waxa weeyaan syntax of PHP. syntax-ka PHP, syntax of PHP. syntax-ka PHP wuxuu ku bilaabmaa ka yar calaamad su'aal PHP. koodkii PHP ba halka la gelinayaa, ka bacdina ka calaamad su'aal iyo ka weyn. intaa wixii u dhaxeeya ayaa PHP koodkii la dhaxgelinaya. intaa hadday ku bilaabanto ay ku dhamaato waxa weeyaan waa PHP syntax-kii ama sida loo qoro PHP. hadaa sidan si ka duwan u qortid koodku shaqayn maayo. haddaba aan isla eegno. haddaba aan soo kicino sam server-ka. waxaan tegaynaa sam, double click, hoos u soo soco, hoos soco. sam control-kaas ayaa laba jeer double click baa taabanaysa. waxa uu noo soo baxay apache start taabo, mysql-kana start taabo. marka boortiskiina halkan buu nagu soo qormayaa. markaan soo saarno notepad ++keeni ayaan soo kicin. sidee baan haddaba ku helnaa? waxaan ku helaynaa sida markaad tagtid aad sam ka sii dooratid ka jeer double click. markaan http isku dhufanay intaasaan noo soo baxday. marka lesson-keeni waa kan lesson php.php. folder baan iska samaysanaa. folder aan koorskan casharadiisa oo dhan ku ururino ayaan samaysanaa. course ayaanu la baxaynaa. course markaan la baxno casharkeeni waxaan course-kaasan gelinaa, folder-ka ayaan gelinaa. folder-ka markaan gelino double click taabo. course-kii waa kaas, waan http course lesson PHP. marka casharkeeni waa kaas. markaan soo saarno waa kan. marka waxaa noogu dambeysay shalay oo ahayd PHP info. PHP info wuxuu noo qabanayay inaan aragno version-ka PHP aan soo download garaysanay iyo server-iskeeni caadiga ah. haddaba hello world sida loo qoro. hello world waxaan qornaa echo baad oranaysaa. echo waxa weeyaan iisoo bandhig weeyaan. echo waa jabaq celin. echo af Soomaali waxay ku noqonaysaa jabaq celin. waa iisoo bandhig. echo waxaa oranaysaa hello world baa ku qoraysaa. hello world waad xidhaysaa. taa hiloobin, waad xidhaysaa. waan noo save garaynaa. marka waa kan halkan buu noo save garaynaa. waxaan tegaynaa markaan chrome soo furanay sidan waxaad ku qoraysaa halkaas local host. markaad qortid forward slash waxaad ku qoraysaa folder-keeni course. markaan ku qorno enter ba iska dheh. enter markaad tiraadid waxaa noo soo baxaya folder-keeni. marka folder-keeni waxaa noogu jira lesson php.php. click dheh. wata maxaa isku soo qoray halkaas hello world. marka maanta waxaan baranay casharkeeni koobaad sidii hello world ama qoraal lagu qori lahayd. iminka haddaan bedelno, haddaan idhaahno hello world how are you,
hawaariyo aan save karayno kana refresh karayno wata hello hawaariyo marka waxaan baranay maanta sidii koodkii koobaad loogu qori lahaa ee ka horreysay ka bacdina qoraalkaagii halkan ku dhex qor waxa doonaysay waxaad furtaa calaamadana ku soo xidh inta weeyaan koodkii koobaad marka PHP waa luqad aad u fudud barashadeedu waana website-ada adduunka sida Facebook, YouTube badanka website-ada caalamka ayaa lagu sameeyaa marka haddaad si fiican u baratid practice badan la timaadid waa sameyn kartaa social media fara badan website wareera sameyn kartaa marka dadaalka ay ku xirantay waa inaad dadaashaa waxaan ku tusi doonaa 10ka ugu sareeya luqadaha la barto ee ugu sareeya ayaan imika eegno arkaysa Google markaan weydiinay 10ka ugu sareeya linkeeda waxa kamid ah top 10 programming languages of the world 2019 to begin with aad ku bilaabisid luqadda ugu horeysa ee aad baranaysid ee wanka number 1 ka gashay waxa weeyaan luqadda la yiraahdo waa luqad aad iyo aad u muhiim ah caalamkana la isku wada raacay waa JavaScript waa luqad aad u muhiim ah insha Allah course fara badan aan ka sameyn doono luqadda labaad waxa weeyaan Python waa luqad muhiim ah iyaduna oo badanka hackerska ayaa isticmaala waa language aad u muhiim waxaana loo yaqaanaa hackers paradise jannadii hackerska waayo aad bay u fududay teeda labaad ay kalena powerful weeyaan luqadda saddexaad waxa weeyaan Java waa luqad aad u muhiim ah oo lagu sameeyo web applications desktop applications iyo waliba mobile applications aadna u muhiim luqadda ku xigta ee afraad waxa weeyaan C ama C++ weeyaan luqadda shanaad waxa weeyaan C++ waa luqad iyaduna aad u muhiim ah oo badanka applications lagu sameeyo desktop applications luqadda shanaad waa tan aan baran doono waxa weeyaan PHP luqadda shanaad waa PHP weeyaan This fact would seriously amaze you. The language which was created for purpose of maintaining personal homepage PHP personal homepage for Rasmus have actually taken over 83% of websites globally by today. Websites boqolkiiba 83% PHP baa lagu dhisaa. Waa luqad aad iyo aad u muhiim ah haddaan soo lis karayno JavaScript waa luqadda koobaad luqadda labaad waa Python luqadda saddexaad waa Java luqadda afraad waa C++ luqadda shanaad waa PHP Swift luqad aad u muhiim ah oo Apple iPhoneska iOS-kooda lagu soo sameeyo luqad aad u muhiim iyaduna C# Ruby Objective-C SQL marka cashirka maanta intaas uu nagu joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga waxaa laga rabaa dadaal badan ku celcelin badan the more you read the more you learn waana buugaag badan akhrisaa intan kaliya ayaan ku koobnaan wax fara badan akhri koorsyo badan qaado practice waa repetition ku celcelin haddaad ku celcelisid maskaxdaada ku saf karayso meel baad gaadhaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu